waxaa shalay magaalada Muqdisho ee lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha fudud ee koobka Jiran Daawud ay soo qabanqaabiyeen xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya oo hogaaminayo gudoomiye Macalin Mustafa Cabdicaziz Maxamed iyo sidoo kale guddiga fulinta ee ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. tartankan ayaa waxaa loo qabtay dhammaan kooxaha u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. tartanka ayaa waxa uu ahaa mid aad u xamaasad badan oo dhammaan kooxaha ka soo qayb galay ay markaasi soo muujiyeen dadaalo aad u fara badan. sidoo kale xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ayaa markaasi ballan qaaday inay sii wadi doonaan tartamada oo lagu dhiirigelinayo si ciyaartooy hankooda sareeya ay markaasi u soo baxaan xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxaha dalkeena Soomaaliya. tartankan ayaa waxaa ku guuleystay kooxda Hegan oo kaalinta koowaad ee ka galay ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. sidoo kale kaalinta labaad waxaa markaasi soo galay naadiga Iman oo markaasi iyagana dadaal badan ee ku soo muteystay ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. kaalinta saddexaad waxaa markaasi gashay kooxda Caawiye Maalin ee Horseed ee ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. shalay ayaana la soo xiray waxaana la abaalmariyay dhammaan ciyaartooyda ee markaasi kaalmaha hore ee galay iyagoona bilado kala duwan ee la siiyay iyo sidoo kale koobkii ay qaateen naadiga Hegan. waxaana ka soo qayb galay madasha shalay ee lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha fudud dhammaan mas'uuliyiin kala duwan oo markaasi ka kala socda qaybaha isboortiga ee kala duwan ee dalkeena Soomaaliya. waxaana lagu bogaadiyay xiriirka ciyaaraha fudud sida ugu dhaqsiyaha badan ee tartankan ay ku qabteen iyagoona tartankan ahaa mid aad u sareeya lagu ammaanay iyadoona dhawaan la ciyaari doono tartanka ciyaaraha fudud ee horyaalka dalkeena Soomaaliya qaybihiisa kala duwan kuwaasoo ay markaasi isku diyaarinayaan dhammaan kooxaha dalka sida ay hore u shaaciyeen xiriirka ciyaaraha fudud inay markaasi joogteen doonaan tartamada oo idil ee dalkeena Soomaaliya ee laga ciyaaro iyagoona qaban doona tartamo kala duwan oo heerarkooda uu markaasi aad u sareeyo.